qaraxani oo ahaa mid ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxaa lala beegsanayay gawaari siday wafdi cadaan ah kuwaasi oo saarnaa gaariga uu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed. inkastoo xilliga qaraxani uu dhacay wasiirka uusan la soconin wafdigaasi, inta la og yahay qaraxani ayaa waxaa ku dhintay 8 ruux, ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo gabi ahaanba ahaa dadkii ka dhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay. gawaarida qaraxa la eegtay ay saarnaayeen wafdiga ayaa waxaa soo gaaray burbur, iyadoona sidoo kale gaari la socotay ufuudaasi ay halkaasi ku burbureen. telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV oo si degdeg ah ku gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa shaashada Hon Cable TV ay qabanaysay dad fara badan oo halkaasi laga qaadaya dhaawacooda iyo meydkoodaba. xarakada al-shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen qaraxani ismiidaaminta ee la beegsaday wafdiga cadaanka ah ee maray isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegeen in gaariga hore ay ugu sii diyaariyeen isgoyska kilometer 4 ayna sugayeen wafdigan inta uu ka soo maro wadadaasi. gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho Dabane ayaa isagu waxa uu la hadlay saxaafadda kana warbixiyay khasaaraha oo halkaasi ku arkay, iyadoona sidoo kale saxaafadda uu la hadlay xildhibaan Muuse Sheekh Umar oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. أنا أقول يا مجا برلمان كجرهان جودي حقوق الإنسان كبرلمان كجمهورية فدرالية الصومالية وعرب أن هل كان كحقيقيو سيدا أن نقولنا هاي مصيبة كواب ست شعب كصومالية وأن عم باريننا بقول كيف بقول بين عم باريننا شعب كصوماليين وحين كعصرنا إن يسكت كاشدان سيدا قطرها نوكر اللي لوجه هرتجي لها. هذا وهم شيء أنا ماشان تبعتها كذا علي بابو كل سوق في وقت كواي هلا marka riwaasad saajid baabuurka qarxiwaan nooca baabuurka yalla baabur waa kaasar ka yalla mid waa kan baabuurka qarxiy nooca weyn baabur hor isqarxiy waa nooca la yiraahdo xuwaha gaarib yalla la dabacsanaan qaranka wallahi hada niyo fikirka qof waxay la dabacsanaan ilaahay baa laakiin dad mas'uuliin oo araba iyo ameesh maraay marka ma ahan shay la dabacsanaayo ilaahay laakiin meeshi u dhaceen sida u dhaceen abu sheegay afar qof oo wafdiga saarna baabuurka wasiirka ma ka badbaadan qarax waa ka badbaadeen anaga intii sidii ku yiri. bartamaha bishii Abriil aynu soo dhaafnay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin kuwaas oo lagu qaaday xarunta cadaaladda ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale saraakiisha caafimaadka Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho. qaraxan ka dhacay isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada Muqdisho shalay laga qaaday badnow saarnaa muddo 5 maalin ah, iyadoona bandowgaasi sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay lagu xaqiijinayo ammaanka. Cabdirasaaq Miradhoore on Cable TV.